السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال كسو دواد محاضرة دويني وكساب سن تاريخ دي أندلس وحانا إنو سوجيدين دونا أجر إيا حسنات عن لسو كبكرين الله كسي شيخ مصطفى إسماعيل هارون وانا كان دقيس وعن هشام بن عبد الجبار ليدادو وموي يبا لغو كعيي دبتر انك عصا ماشي انقلابي واقف صدي وقتك كان وعهد فتنة بلعبانتي وقرني شاد يبلويسي 400 taariikhda hijrigii markay maraysay weeyaan ninkani markuu meesha qabsaday aamiriyiintii buu eriyay meeshii buu xoog ku qabsaday waa dawladii buu isku dabarido laakiin looma daynin ee waxa bilaabmay waqti fitna oo madaxnimadii la isku laayo oo tiro badan dhacdo taariikhda 400 la joogo ilaa 422 laga gaadhay waa 22 sanadood 22 ka sanadood 13 amiirul muuminiin baa soo maray yani waxaad qiyaasi kartaa marka fitanka iyo mashaakilka taagna sida uu eegaya 22 sano oo 13 amiirul muuminiin oo kala nooc ay soo mareen waxa dhacay ninkii guriga ku xidhnaan jiray mid ay walaalayiin oo boqorkii weynaa al-Hakam caalimka inuu ku sheegaynaa uu dhalay al-Hakam ibn Abd al-Nasir nimuu dhalay oo Sulaymaan la yiraahdo ayaa isku dayay inuu dawladdaasi inqilaabo laakiin wuxuu furay albaab cusub oo aan taariikhda Andalus lagu aqoonin albaabka maalintaasi furmay Andalus wuxuu ka mid yahay waxyaabihii keenay inay burburto markuu arkay ninkan madaxda iyo qolada dawladda haystay inaanu babac dhigi karin ayuu wuxuu qabtay dawladii gaalada ee ugu dhaweyd qashtaala meel la yiraahdo qashtaala dawladii weyneyd ee muslimiinta Andalus markay qabtay bilad sakhar buura yar yar oo la yiraahdo oo badan sare ee Isbayn ku yaala oo qura ayaa ka harsanaa waqti dabadeed dawladda yar way iska weynaatay dabeetana gudaheeda iska dishay way kala gooday Lyon iyo qashtaala bay kala noqdeen qashtaalo waa castle وفي عربي مركي غلط عربي داخلية قستالة أخرى وقلعة دولة داير ماشي شوكتها يوتجي وحكولها شيء دولة داسير يعني يساعدان ويكساعدان دولة دي قرطبة كتلين يسئن لإنقلابه ويكود الدولان الفنسون اللي يدادو الدولة التانية منكي هيشتي وحا أركي فرصة صعيدة ينيتاي أول دولة ديار وجزية بحساب دولة دوينة مسلم كحكومة طبوها ما أنت نوح أركي يا مسلم كيو يصلين يا فرصة بو أركيين يتهاي وأقولها يبيدان كود الدول ولا ود الدولي دبتنا وحلاقة قبصة ماشي يدا هيت نكي لورن شري محمد بن هشام بن عبد الجبار يا المهدي اللبحي يا قشطالة يا سليمان بن الحكم سليمان بن الحكم والله بحي المستعين بالله والله التاريخ وحي دادان المستعين بالسليبيين بو هي مستعين بالله هنا ما هينه انتو قلدا سو كحيستay ayaa lagu wada duulay dabeetana dawladii baa ninkii laga qabsaday waxay boqortooyadii dib ugu soo noqotay markaasi wiilashii uu dhalay al-Hakam ibn Abd al-Rahman al-Nasir wiilashiisii mid kamida oo ah سليمان كان يا هشام كيبا walaalaatii guriga lagu xidhi jiray markuu meeshii qabsaday mahdigii jabay ayaa wuxuu la kulmay wiil la yiraahdo al-Fata waadix oo aamiriyiintuna oo nimankii xaajibiinta meesha ka ahaan jiray ee laga qaaday Muhammad ibn Abi Aamir qoladu ka tirsanaa weeyaan mahdigani wuu qaldayo qoladii uu dawladooda baabiiyay ayuu markii la soo eriyaday hadana uu yimiyo uu leeyahay ninkii amawiga aanu iskuurarka ahayn meesha igala qabta fatal waadix waa aqbalay laakiin waxay yiraahdeen ninkii uu xoogan yahay malak qashtaalana waa kii ka haysto meesha waa isku qabsadeen kama qaadi karnay maxaynu sameeynaa waa loo fakiray waxa la yidhaahdaa aan gaal kala raadino dabeetana mamlakatu Aragon Barcelona magaaladan la yiraahdo ayaa caasimad markaa wahay Barcelona boqortooyo ka dhisnayd oo qolada gaaleed ay lahayd ayaa u yimaadeen boqorkii haystay
waxay yidhaahdeen waxaanu rabnaa sulaymaan ibnu alxakam iyo waxoogaaga barbarka u haysta sulaymaan ibnu alxakamkii meesha qabsadayna qishtaaliyiintii mooyaane wuxuu kaloo la qabtay meesha mooyaane wuxuu soo dhoweeyey qabaa'ilkii barbarka ah oo qabaa'il aad u xoog badan oo tiro badan oo waddanka joogay kuwaasuu markaa sanad u ah waxay yidhahdeen waxaanu u baahannahay inaad nala duusho oo aad nala qabato khilaafadii islaamiga ahayd oo ay gacanta iyada soo gasho ninkan ay u tageenee barcelona haystaa waa duwalkii yaryaraa ee jisyada bixin jiray ee uu cabdiraxmaan inaasir jisyada siin jiray waa min bacdihina alxaajib ilmansuur baa jisyada ka qaadi jiray ninkii jisyada bixinayayba intay u tageen bay waxay yidhahdeen waxaanu rabnaa inaad nala furato waddankii oo meesha nala qabato amiir barcelona wuxuu yidhi waa si fiican laakiin bishuruud baan dhiganayaa shuruudaasi baan idinkula duulaya waa maxay baa la yidhi shuruudaadu waa laba ninoo da iska soconaya le ciidan ma haystaane wuxuu yidhi ciidamadiinna iyo wixiinaa kale markaa keensataan anugu dagaalku intuu socdo buu yidhi maalin kasta oo dagaalkaasi soconayo 100 diinaar oo dahabiya baan rabaa oo boqortooyadu ay leedahay cashuura maalin kasta oo dagaalku soconayo dowladda barcelona in la siiyo 100 diinaar oo dahabiya kow ciidan baan idin siinayaa ciidanka aan idin siiyo askari kasta oo dagaal gala waxaan rabaa 1 diinaar oo dahabiya in maalintii la siiyo askari kasta oo dagaalka gala 1 diinaar oo dahabiya inuu helo afar waxaan rabaa buu leeyahay dagaalkaa markaynu gallo ama 3 dagaalkaa markaynu gallo haddii aynu jabinno khilaafadiinnaasi wixii hub la qabsado inaan anigu qaato dowladda barcelona inay hubka qaadato afar waxaan rabaa buu yidhi madiinada saalim la yidhaahdo oo ah mudankii uu furtay cabdiraxmaan inaasir ama cabdiraxmaan athaalit ninkaa la odhan jiray dhulkii uu furtay ah magaaladaana in muslimiinta laga soo wareejiyo aniga gacanta lay geliyo afartaa shardi haddaa aqbalaysaan waa idinla duulayaa boqortooyadoo maalintiiba 100 giniya oo dahaba 100 diinaar oo dahaba askari kasta oo caynkaasiya weliba askarta waddankii wuxuu u ilaamiyey in nimankii muslimiinta ah lagu duulayo waryaa tatawacaya buu yidhi duulaya oo weliba lacag helayo maalin kasta 1 gini baa laydin siinayaa dadkiiba askar bay soo qoreen waxaa la yidhi annagaa duulayna ila meesha lacag baa ka furantay duulimaadkiibaa intiiba wuu ka aqbaleen waxay yidhaahdeen intaaba waa kuu saxeexanay